بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد كتابك إمام النووي رحمه الله تعالى منهاج الطالبين وإنت مداه inaga kala go-ay abaabada buyuucda iyo ganacsigana aynu ku jirnay oo hadda innaga xirfaddeena raasumaalka ee asaasiga a noqotay ayaynu maanta insha allahu tacaala halkan ka bilaabi doonaa oo bisha ramadaan iyo inta ka dambaysaba aynu wadi doonaa haddii alla yidhaahdo waxaynu joognay baabka uu ku magacaabay baabu altawliyati waalishraaki waalmuraabaxa wuxuu ku saabsan yahay altawliyati beec wareejin qof wax soo iibsaday oo wixii uu soo iibsaday sii wareejinaya isagoo laga yaabo lacagtii inuusan bixin ama wada bixin waalishraaki qofka shirkad ku noqonaya oo wuxuu soo iibsaday qayb sii gadaya isagoo laga yaabo kii hore lacagtiisii wax lagu leeyahay waalmuraabaxati iyo nooc kale oo isna ribix kadoon la yidhaahdo oo wixii aada soo iibsatay lafahaagii iyo faa'iido boqolkiiba intaa ah oo shilinkiiba intaa ama boqolkiiba intaa saaran tahay dib loogu sii iibinayo lafihii uu kugu joogay iyo ribixi la saartee lagu sii gadayo waa saddex nooc oo ganacsi ah oo ilaa hadda jira wey laga yaabo magacyada isbedbedelay qaarkood labada hore tawliyadiiyo ishraaga magaca isbedelay laakiin waa beec iyo ganacsi ilaa hadda suuqyadeenna ka jira wey muraabaxadana iyadoo sidaa magaca u wadata yaad badanaa islamic bankinka markii aad tagta hadda maanta bangiyadan la yidhahdo waa islaami yada ganacsiga lala galay ku shaqeeyaan ayay muraabaxaduna ka mid tahay saddexdaasuu ka hadlayaayo wuxuu yidhi ishtaraa wuxuu iibsaday qofi shay-an waxbuu iibsaday qiimuna ku soo gatay uma qaala wuxuu ku yidhi licaalimin qof og oo garanaya bihamani lacagtuu ku soo iibsaday la ogaa wallaytuka waan kugu wareejiyey hada alcaqdi heshiiskan adaan kugu wareejinayaa faqabila minhu uu ka aqbalay waa yahay buu ihi anna waan ogolaaday lazimahu mithlu thamani lacagtii lagu soo heshiiyey oo kalaa ku waajibaysa waxaa dhacda mararka qaarkood waxbaad soo gadan ujeeddiya danbaad ka lahayd waxbaa kaa iska bedeli duruuftaadii qof baad leedahay war beecan aan ku gatay intani ani duruuf iyo waxbaa ila soo darsaye ku qaada beeci waxaa laga yaabaa dayn buu ahaa qayb baad bixisay qayb baa lagugu lahaa haddii lacagtii aada isla garanaysaano waraniyow beecii ku qaado on kugu wareejiye haye uu ku yidhaahdo lacagtii oo kalea laga doonayaa mararka qaarkood waxaa dhici karta tan waa baycu lacyaan bayculmanaafic inay noqoto meel baad kira ugu jirtay caqdi iyo heshiis baad ugu jirtay lacagta kiradeed bixinaysana waa la yaqiinay oo qofku waa kula ogaa heshiiskii la wareeg baa tidhi isagana waa yahay buu yidhi wixii aada heshiiska ku gashay adiga unbaa booska ka baxaya isagana booskaagiibuu gelayaa beec wareejin weeye waxba lama saaran laakiin intay ahayd ama beeculmanaafic oo ijaaraada ha noqdo ama bayculacyaan oo cayntiiba milkigeeda la gadaya ha noqotee labadaba way ku asaxaysaa wa huwa baycun weeye fii shardihi shuruudii laga rabay in waxaa la kala iibsanaya iyo lacagta la yaqaan iijaab iyo qabuul inay dhacaan iyo wixii la midka ahaa iyo wa taratubi axkaamihi axkaamtii inay ka dhalato milkigii caynta ama manfacada iyo xaqii caqdiga iyo heshiiska inuu qofkan ka wareego qofkana wixii lacag iyo hantiha ay ku wareegto
wixii baxayna isagaad u celin wixii dayn ahaana ama in yar yar loo bixinayeyna ciddii la siinayey baad la wareegi labada qofunbaa isbedelaya laakiin laa yaxtaaju hase ahaatee beecani uma baahna ilaa dikri thamani lacagtii in la sheego uu ahaa maadaama aada islaba ogeydeen qofka maxayaa loo sheegi qofkan kaa iibsanayeed lacagta u sheegi lahayd licaalimin bithaman baa lagu soo yihi waa qof lacagta og waad ka soo wada hadaseen waa soo sheekaysateen qiimuhuubuu ogyahay waxaa laga yaabaa heshiisyadii inuu arkay aad wax ku kala gadateen qiimaha mugdi kama saara haddii kale jahaala iman lahayd ayib mas'alaa timid marka aniga heshiiskan qofkan waan la heshiiyey aan ka soo qaadnee waxaani 100,000 baan kula soo heshiiyey lacagta 50 waan bixiyey waxaan ku ihi qiimihii ku qaado oo ka dhigan 50kaygiina isii 50kii kalena ninkay u dhinayd sii waa yahay baa tidhi qiimihii ku qaadaan iska ogeyne ninkii lacagta igu lahaa baan la hadlayoo 10 buu iga cafiyey 10kaa qiimihii ma ka go-aysaa walow xuta haddii laga tuuro canilmuwalli qofkii wareejinayay beeca bacdu thamani lacagtii qayb ka mida haddii laga tuuro inxata way ka dhacaysaayoo way ka tuurmaysaa canilmuwallaa qofkii lagu wareejiyey haddii aniga 10 layga cafiyo 10kii baa cafis adigana kaa haddii 20 la ii cafiyo 20kii waa cafis qiimihiisii ku qaada sow ma ahayn dee qiimihiisa runta ah 100 mehe waa 90 ama waa 80 cafiskii marka laga reebo 90kii 80kii buu qofka ku qaadan baalka xoolahaasi iyo badeecadaasi intay ku tagto unbuu isagu ku yeelan wixii la cafiyo qiimihii baa laga cafiyey waxay ka dhigan tahay isagoo 90 ama 80 lagu gatay oo qiimihii kula wareegtay ka dhigan tahay haddii guriga kiradiisa bishii ay 20,000 ahayd oo heshiiskii aad igala wareegto oo heshiiskii markaad igala wareegtay ninkii intaan la hadlo aan idhaahda nin yahow heshiiskii 20kaa 15 iga dhig oonaan u doonaya bil kastaba 5 halkaa inaan ka qaata aan doonayo ma soconayso 15 marka laga dhigo adigaa 15kii yeelan 5ta cafiska adaa yeelan waayo qiimihii wixii tawliya hadduu yahay beec wareejin wixii qiimihii asalkaa laga cafiyo qofkii heshiiska la wareegay bay ka cafismaysaa taasi waa nooca hore oo beec wareejinta mar bayna dani ku jirtaayo laga yaabo qofku inuu wax kala gala inuu doonayo adiguna aad waxaan xiisaynayso hadda innaga heshiisyada kirada hoteelada iyo guryaha waa lala kala wareegaa sow maaha tawliya waaya markaad heshiiska oo dhan wareejinayso waxaa dhici karta heshiiska oo dhan inaan wareejiyey inaanan rabin waxaan lacag baan ku gatay waktigiina waa soo dhow yahay lacagtiina ma hayo beeciina waa la igala noqon waxaan rabaa marka qof ila yeesha oo qaybta dhimanna bixiya wixiina aan wada yeelannaan doonayaa ama intaa maba aha waxaan rabaa lacagtii qayb baan bixiyey qof ila yeesha oo qaybtii intuu ii soo celiyo waxana ilana intifaacsada anna waxaa ii soo noqday meel kale aan iskaga furdaamiyaan doonayaa waxyaabaa suuqyada ka jira wey ishraaq baa la yidhahdaa markaas ma wada wareejinaysidee qayb baad wareejin shirkadna waa ku noqonaysaan walishraaku la wadaajintu fii bacdihi badeecadii qayb ka mida qof intaad ku wareejisay heshiiska uu la wadaajisay ka tawliyati beec wareejinii heshiis wareejintii bay la mid tahay fii kullihi dhammaantii in bayana albacda qaybta hadduu caddeeyo ma nus baa ma 40% baa ma 60% iyo 70% baa inta aad wareejinayso qadarkay ka tahay waa inaad caddayso walow atlaqa hadduu iska yidhaahdo qayb baan kugu wareejin buu yidhi inta ay ka tahay qaybtana ma caddaynin saxa waa sixi wa kaana wuxuu noqon munaasafatan kala badh buu noqon waa loo kala goyn labadoodii waayo wax laba qof ka dhaxeeya wax haddii laba qof la wada siiyo waa nusnus mar haddaad tidhi intaa bixi heshiiskiina ila gal waa yahay uu ku yidhaahdo
nusnus baad noqonaysaan. wax kasta oo xaq ah oo inta loo kala leeyahay la garan waayo isagiina qaybsami waayana waa waxaa la sameeyaa nus bartankaa lagu dhuftaa nusnus. saa darteed walow alaqa hadduu si guud u yidhaahdo qadarka barhka iyo qaybtaa uu siinayo ka gadayo ama ku wareejinaya uusan caddayn saxa heshiisku waa asaxayaa. wa kaana munaasafatan nusnus buuna noqonayaa loo kala baro loo kala gooyo. wa qiila waxaa la yidhi taasi waa cala alasaxi wejka raajixa cinda alasxaabi waaye. wejka kalea wuxuu leeyahay wa qiila waxaa la yidhi laa maya ay laa yasixu. qiilkani wuxuu ka socdaa saxadii wa qiila laa ay laa yasixu weeye. sababtoo ah bacdigii waa majhuul. beyci amankii haddii la gartay mabiicdii ama muhamankii ama silcadii ama badeecadii la gadanayey qadarkeedii waa majhuul weeye. beec jahaalo ana ma asaxayo. wejkaasu ku salaysan yahay. laakiin fi lmadhabi waa daciifo jahaaladii waxaa looga baxaa ilaaqu nus buu ku dhacayaa baa looga baxayaa. taasina waa ishraaqii qaybtii labaad waaye. wayasixu waxaa asaxaya beycu lmuraabaxati beeca ribixa la kala raadsado baa asaxaya. muxuu yahay baacaasi? bian yashtariya waa inuu ku soo iibsado qofku isagu bimiatin 100 buu kusoo iibsado ku joogaa. adigu waxaad ku soo gadatay 100 uma yaquula uu yidhaahdo bictuka adaan kaa iibinaya waxaan kaaga iibiyey bima shtaraytu wixii aan ku soo gatay iyo waribxi dirhamin iyo 1 shilin inaad ii saarto likulli 10 tobankiiba hal inaad ii saarto. waa waxa boqolleyda iyo percentage-kii waaye. nisbo boqolley aad ii saari boqolkiiba intaas ama tobankiiba hal baad ii saari. 100 baan ku soo gatay 100kii iyo tobankiiba hal baan kaaga gaday waa 110. ilaan 100ku waa 10 meelood oo min 10 min hal baa la socda 110 baan kaaga gaday wey. halkaa fuqahadeennu way dhihi kareen 100 baan ku soo gatay 110 baan kaaga gaday way dhihi kareen. laakiin ereygu macno kaluu xambaarsan yahay. waxay rabaan inay ku yidhaahdaan faa'iidada waana la qadari karaa, nambar ahaan waa loo sheegi karaa. faa'iidada si kalena waa loo sheegi karaayo boqolkiiba intaa waa la dhihi karaa. aakhirka way caddaan. marka wayasixu waxaa asaxaya beycu lmuraabaxati beyc lafihii lagu soo gatay iyo ribix la saartay wuu asaxayaa. muxuu yahay? bian yashtariya waa inuu soo iibsado bimiatin 100 buu ku soo gatay. uma yaquulu wuxuu leeyahay bictuka adaan kaa gaday bima shtaraytu wixii aan ku soo iibsaday horta waan kaaga gaday lafihii ahaa. wa ribxu dirhamin iyo 1 shilin oo faa'iide ah likulli 10 tobankiibana hal baa ii saaran. wuu dhihi karaa. wuxuu kaloo dhihi karaa oo ribxu yasdah erey xilligaa la isticmaali jiray oo asalkiisu farisi ahaa buu ahaa. dah macnaheedu waxaa weeye waa 10. yasdahna waa 11. 10 iyo hal waaye. marka muxuu yihi dah waxa 10kii waxaan kaaga gadayaa yasdah 11. tobankiiba 11. tobankiiba hal baa ii saaran soo maa. tobankiiba tobankeedii iyo hal dheeraadaan kaaga gadan. xilligaa erey caan ahaa oo la wada isticmaalo ahaa. innagu halkan aan joognaa luqadeenna soomaaliga ereyo badan oo sawaaxili ah ereyo badan oo ingiriisaan suuqeenna isticmaalnaa soo maa. way dhici kartaa mar waliba aqaafad meel ka timid eraya inuu luqadda ku soo biira. waa shay iska caadi oo abiica wey. luqadaha kobocoodii iyo tarankoodii iyo say u baahaan marka la eego. sidaas waa ribxi baa lagu saartay. waa sida maanta haddaad islaamic bankinka tagtaan nooc muraabaxa la yidhaahdaa jira. faa'iidada ay saartaanna boqolley bay xisaabaan. waa nafsu masaladii fuqahadeennu quruuntaa hore ka hadli jireene masale cusub maaha. bankigu waa hay-ad ganacsi. waa un shaksi sidii shirkad lacag haysata wey. gaadhi baan u baahnahay gaadhigiina waa kan anigu kaash ma haysto aan hadda caddaan ku bixiyo. maxaad rabtaa? inaan ini yar u bixiyaan rabaa. anigaa 100 soo siisan adna boqolkiiba 10 baan ku saaran. intaasay tegi muddadaana waad isaga bixin dhib ma laha. laakiin shuruudda la rabo
markuu kaa iibinayo ka hor waa inuu isagu milkiyo oo baycu maa laa yamlik bayc laa tabic maa laysa cindaka nahaa can ribxi maa lam yadman nusuus badan baa diideysa walidaalika culimmadu waxa ay ka hadlaan waa tallaabooyinka sida loo horumarin lahaa inaan la isdaba marin wey haddii la isdaba mariyo heshiiska uu kula saxiixay isagoon sooba gadanin wuxuusan lahayn buu dee kaa gaday salamka soo socdana maaha taasi waa haddii faa'iido lagu saaranayo anugu haddii badiicada aan soo gatay qiimaha iigu joogtay aan ku khasaaray oo inaan isdhaafiya aan doonayo oon rabay inaan wax kaa dhimana oo 10kiiba hal baan kaa dhimi aan ku idhaahdana iyana way bannaan tahay walmuxaatatu ka riditaanka muraabaxada waa ribix baa lagu saartay iyada haddii dhinaca kale loo akriyo oon ku idhahda 100 buu igu joogaa 10kiiba hal baan kaa dhimi 90 baan kaa iibin sow maaha 90 baan kaa iibin waan ku dhihi karay laakiin 100kiiba hal baan kaa dhimi 10kiiba hal waxaa lagu leeyahay boqolley xisaabta ribaxa iyo khasaarahaba ka dhimitaanka iyo ku dallacaadaba boqolley ereygaa waa la isticmaali karaa qaabkaana wax waa loo xisaabi karaa markay bangiyadu iyagoo qaabka u xisaabaya markaad aragto warbahashii interestiga iyo ribadii baa hoosta si weji kale loo yeelay hadhihin waata kutubteena ay ku qoran tahay walmuxaatatu ka riditaanku iyo ka beecjabintu ka bictu waan gaday bima shtaraytu waxaan ku soo iibsaday iyo waxadi dah yaasdah inaan 10 rido 11kiiba ama 11 hal waxaan ka ridayaa wey wayuxatu waxaa laga ridayaa min kulli axada 10 11kii la arkaba waaxidun hal mid baa laga ridayaa waqiila min kulli 10 waxaa la yidhi maya ereygaa macnihiisu 10kiiba hal baan kaa cafiyey weeye iyo maya 11kiiba hal baan kaa cafiyey weeye 11kiiba ma hal buu ka cafiyey bay noqon dahyaasdah markii ka dhimitaanka ay tahay bay tafsiirkeeda isku hayaan al-asaxu wajka raajixa min kulli 11 waaxidun 11kii hal baan kaa cafiyey bay noqon marka wixii aad soo gadatay qiimihii aan ku soo gatay 100kiiba intaa igu dar ama 100kiiba intaa baan kaa dhimay beecu saa waa ku asaxa way ganacsiga waa loo golyahay mas'aladaas mas'ala ku lamaan buu rabaa inuu keeno laakiin mid buu gogoldhi hordhac uga dhigayaa waydaa qaala hadduu yidhaahdo markii wax la kala gadanayo maxaynu qorannay maxaynu isnidhi baa lagu kala baxaa maxaan ku fikirayey iyo maxaan ula jeeday oon doonayey dee meesha ma taallo laba qof oo wax kala gadanaysa cad baa la kala goosanayaa haddii cad la kala goosanayana cidna cidda kale qalbigeediiyo maskaxdeediiyo uurkeediiyo rabitaankeeda ma oga maxaynu qoray oon saxiixnay ama maxaynu isnidhi oon ku wada hadalnay baa lagu kala xaq goostaa walow waydaa qaala hadduu yidhaahdo bictu waxaan kaaga iibiyey bima shtaraytu wixii aan ku soo gatay lam yadkhul fiihi geli maayo lagu dari maayo siwa thamani lacagtii uu ka bixiyey waxaan ahayn lagu dari maayo waxaa jira waxaad ku soo gadatay iyo kharashaad ganacsi baa jira kharashaadka ganacsi xamaaligii soo raray ama shaksi ama gaadiid baa gala waxaa gelaya waardigii waardiyeynayey inta alaabta la soo waday gaadiidka lagu soo qaaday xamaaligii saaray iyo wixii la midka ahaa waa kharashaad hadduu raashin iyo wax la miisaya ahaa ciddii idiin kala miistay lacag bay qaadatay ama ciddii heshiiska idiin kala qoraysay lacag bay gashay lacag bay qaadatay taasi kharash ganacsi weeye laakiin beecii ka mid maaha haddaba haddii aad adigu tiraahdo markaad qofkan ka iibinayso wixii aan ku soo gatay lacagtaad ku iibsatay keliya weeye kharashaadka kale kuma jiraan haddaad doonaysa inaad ku darto kharashaadka kale oo tiraahdo kharashaadkii kale lacagtaad ku gaday xamaaligii waardiyihii kii wax kala qorayey iyo waxa laalay meeshii la dhigay bakhaarkii la dhigay ee lagu waardiyeynaya kharashkii ku baxay intii oo dhan oo la isku daray iyo intaasoo faa'iide aan kaa rabaa haddaad rabto inaad tidhaahdo waxaan ku soo gatay ha dhihin maxaad dhihi walow qaala hadduu yidhaahdo bimaa qaama calaya wuxuu igu tegey wuxuu igu fadhiyo hadduu yidhaahdo dakhala waxaa geli maca amanihi lacagtii lagu soo gatay oo lagu daray ujratulkayaali ninkii miisayey ijaarku qaatay uu geli
والدلال دلالكي إيجاركو قاتي وقلي والحارسي وارديه خرج كيسا قلي والقصاري كي وحشرشري أما قوقوين يما قلي والرفائي كي تولي مالها دل عسن تلتولي كبا يما قلي والصباغي كي رنشيين وقلي هذا ربطه خرج كيو نال حسابته waxaan ku soo gatay hadhihin waxa igu joogtade inta aniga igu tagtayde sababtoo waxna wada ku soo gatay waxna adaa ku dardaray si qiimo faa'iido aad ugu dalacdo dhar baad soo gaday waad riinjiyeysay gaari baad soo gadatay riinji baad buufisay intaan ku soo gatay hadaa tiraado riinjigaada gadaal kaga daray dilaalku lacagta lagu gatay kamid maaha waardiyuhu lacagta lagu gatay kamid maaha xamaaligu lacagta lagu gatay kamid maaha laakiin waa kharashaadkii ganacsi ee raacay ma doonaysaa inaad ku darto intaan ku iibsaday hadhihin waxaa tiraahdaa intuu igu joogo walow qaala hadduu yidhaahdo bimaa qaama calaya intuu aniga igu tegay ama igu joogo dakhala waxaa gelaya maca amanihi lacagtii lagu soo gaday heshiisku ku dhacay ujratulkayaali baa ku biirmaysa miisaha qofkii wax miisaya ama miisaamayey ijaarkii u qaatay والدلالي دلالكو لعبتي وقاتي وحو قاتي والحارسي وارديو وحو قاتي والقصاري مدكي شرشري وحو قاتي ما غوغوينيي يا والرفاي رفاقه وحال يراهدا قفك ميلها دلدل عسن اما تشابان كبكبا لا يراهدا جوان كان ميل بو كتولay ka dilacsan yahay maradan meel buu ka tolay ninka lacag buu qaadanayay waxa markay ganacsi iyo suuq timaado wax fariye bilaash ma jiro nin kasto shaqo qabta neef suuqa lagu gaday Soomaaliya baqal kuwa dilaal kuwa macalhaye kuwa mareegeliye Soomaaliya baqal inta sadana lacag wada qaadanaysa iyo wasabaaqi ki ku riinjiyay hadii xoolaba ay ahaayeen kuwa sumad ku marmariyay oo baashi riinjigii wato kana calaamada mari waa la gatay leh kuwa xoolihii aad gadatay halka waardiyeynayo inay ka kala cararin raba oo kula galbinaya intan oo dhan lacagtooda inaad ku darto ma rabtaa intaan ku gatay hadhihin intay ugu tagtay dheh ya intay ugu tagtay kharashaadkaas ijaaraadka iyo qayba iman doona waa qabala si faahfaahin doona wa qiimatu sabghi iyo riinjiga lacagtiisina way geli sabaq waa ninkii gacantiisa isku riinjiyay waxna waa riinjigii la mariyay hadda waa kan la yiraahdo ma alaabtii iyo gacantii baan ku xisaaba misaalaabtaada soo gadano aniga gacantaydu ma xisaaba soo isma dhaho ninkii gacantiisi way sabaaqo wa qiimatu sabqina riinjiga lacagtiisi way iyo wasaa'irul mu'ani kharashaadkii kale al muraadati ee looga jeeday lil istirbaahi in ribix laga daraadiyo qi kharashaadkan kale loo bixiyay inay ribixi ku daraan oo dhan qofku waa ku daraya waxaa la isku qabsaday fuqahaada shaaficiyadu waxay isku qabsadeen guri kira iyo xoolo nool iyo haday tahay calafkii la siinay hadaad neefkii meel intaad keento aad quuliso alaabtiina guri kira aad dhigto ma soo galayaan bimaa qaama calaya ma ku jiraan mise kuma jiraan almadhabu guriga kiradiisu way ku jirtaa laakiin xoolaha cuntada la siiyay kuma jiraan bima qaama calayhi soo geli maayaan waayo waxay yiraahdeen guriga kiradiisu mu'anu tijaari caadi uga mid noqotaa laakiin xoolaha aad leedahay waa calaf waa la siiyaa طيب ماشي dadku u shaqeyn lahaa adiguba haddaad shaqaysato dilaalkii keena waxaan oo kale intaasuu qaadan jiray ninka jarjarana intaasuu qaadan jiray ninkii xamaaliga ahna intaasuu qaadan jiray adaa soo halooday adaa jarjartay adaa xamaashay ma xisaabani lacagtii ku bixi lahayd walow qasara binafsihi isagu hadduu googoosto aw kaala uu miisto aw xamala uu xamaasho aw tatawwaca bihi ama waxaa ugu deeqay shaksun qof aan lacagba ka qaadaninba fii sabiilillaahi ugu sameeyey intiiba lam yadkhul geli maayo ujratuhu ijaarkuu qaadan lahaa dee geli mayso aduma adaa ijaar iska qaadan lahaa waxaagii haddaad xamaalato maadaa ijaar iska qaadan lahaa waxaa lamida guriga iyo bakhaarkaad dhigatay haddaa adigu leedahay maadaa kira isa siin lahaa waxaagii maalkaagii oo gurigaaga yiilay wey
adigu waxaagii haddaad adigu xamaalato shaqaysatay xooggii aan ku xamaalay iyo kaan ku riinjiyeeyey lacag iyo number u bedelo qof kale hadduu sameeyo soo ma gasheen anna haddaan sameeyo xooggayga iyo xisaab ma dhigi kartid baa lagu yidhi walow qasara hadduu gaagaabiyey binafsihi isagaa gaagaabsaday ow kaana isagaa miistay aw xamala isagaa xambaaroo xamaashay aw tatawaca bihi ama waxaaba ugu deeqoo ku sadaqaystay shaksun qof kale oon waxba ka qaadanin lam yadkhul geli maayo ujrata ujeerkiisa ku darsan maayo mu'anadii ku dari maayo bimaa qaama calaya soo gelaysa kuma xisaaban karo walyaclamaa labada qof ay isla ogaadaan amanahu lacagtiisa aw maa qaama bihi ama inta uu ku tegey intaan caqdiga la gelin ha isla sii ogaadaan kharashka inta uu ku kacay si waxa la doonayo lacag cad oo tiradeeda la yaqaana ay u noqoto falow jahilahu hadduu garan waayo axaduhumaa midkood baan aqoonin oon garanaynin baala beeca waa buraya cala saxiixseeda raajixa waa beec labadiisii rugni amankii iyo musamankii ama badeecaddii iyo lacagtii midkood baan la aqoonin beec jahaalaana ma asaxo nahaa can beyci algharari bay soo gelaysaa nabigu yihi sala allahu alay wasalam ayb walyusadaq ilbaayicu qofka wax iibinaya ha loo rumeeyo fii qadri thamani lacagta qadarkeedii iyo walajali muddada iyo washiraayi in la iibsaday bilcardi badeeco iyo wa bayaani alcaybi caybtii caddaynteeda alxaadii ku soo darisee ku gaartay cindahu isaga agtiisa wuxuu yidhi ninka baayica ee kaa iibinaya qiimuhu intaasuu ahaa wax beeniya haddaan la haynin waa loo rumayn muddadana imisay ahayd xoolaha lagu bixinayo intaasay ahayd caqdi baa lala kala wareegayaa muraabaxaa la gelayaa haddii caqdigii lagaala wareegay muddadii dhinnayd in lagu bixiyana qofkan kalaa kaala wareegay nin baa gaadhi gatay mudduu lacag soo bixinayey hawsha inuu ka baxuu rabaa adaa gaadhigii xiisaynaya oo danaynaya intaydii aan kaash ku bixiyeyna ii celi heshiiskii kalena la wareego adoo iyar isaga bix hadduu ku yidhaahdo muddada lagu bixin waa inaad sheegtoos garanayo muddada waa in la garanayo haddii kale ajal majhuula beeca jahaalada way baaburisaa hadduu muddadu waa xilligaa yidhaahdo isagaa loo rumayn waa shiraa'i bilcardi ma lacag baad ku gadatay mise badeecad alaabtan aad gadatay ma badeecad kalaad bixinaysaa dhar kale iyo raashin iyo sonkor iyo ma waxbaad siinaysaa mise lacag kaashaa lagaa rabaana isagaa loo rumayn wa bayaani alcaybi ceebtii inuu caddeeyo alxaadii la soo daristay ee ku dhacday cindahu agtiisa ceebtii hore ee uu lahaa markuu gadanayey iyo ceebtii gadaal ka gaadhay waa inaad kala sheegtaa gaarigan aad wadato eed igu wareejinaysaay xaggee baad jabnayd waagii hore inta adugu haysatayse maxaa jug gaadhay adaa lagu rumayn waa inaad kala caddaysaa wax beeniya haddaan la haynin falow qaala hadduu yidhaahdo isagaa aaminahay oo loo rumeeyey sow maaha warkii aynu u rumaynay haddii wax ka soo daba noqdo haddii dib wax ka soo baxaan maxaa la samayn falow qaala hadduu nagu yidhaahdo marka hore bimiatin 100 baan ku soo gatay fabaana waxaa caddaatay bitisciina 90 inay ahayd baa caddaatay wuxuu yidhi 100 baan ku gatay 10kii boqolkiibana 10 baa ii saaran 110 kaasaan kaaga iibsaday 100kiiba 10 baa ii saaran oo 10kiiba hal baa ii saaran waayahay saasaan ku heshiinay waxaan dib ka ogaanay waraaqihii iyo cadaymihii iyo markhaatigii markaan helnay wuxuu ku iibsaday 90 bay ahayd beeca muxuu noqonayaa faladharu sida raajixa bayna aqwaali imaam imaam shaafici aqwaashiisa waxaa raajixa annahu yuxatu waxaa laga yaxutu wuxuu tuurayaa aziyaadata 90ka waxa dheer iyo waribxaha nisbadeedii iyo qaybtii faa'iidada ku lahaydba waa la isla tuurayaa 110 soo ma ahayn 99 baad adeer leedahay 10kan dheer iyo halkii ribaxa ay la socday 11ka mali waayo waxaan ku heshiinay saas ma ahayn qiimuhu joogay oo 10kiiba hal saaran tahay soo ma ahayn qiimaha 100 buu haygu yiri 110 saas ku noqotay waxa cadaatay 90 buu ahaa qiimuhu joogay ku heshiinay waa 90kii 10kiiba hal saaran yahay 9 ku daran weeye 99 baad leedahay 11ka alla kuma calfin oo saco weeye beecuna waa saxay waa beeca qiimihiisii la isku ogaa wax ka soo noqdeen soo jahaala maaha maya anigu 110 haddaan ogolaa xaggaygaa wax ka soo noqon lahaayeene 99 maxaan ku diidi ninkii 100 ogolaa waxaan badeecaddan 100 ku iibsaday iyo 10
9 miyuu diidi waxbaa buu soo noqday uu faa'iideey raajixa adharka sidaa waay wa fii qawlin laa yasixu ma asaxayo oo maxaad ugu diideen waxaan ugu diidnay waxaa laga yaabaa 100 baan ku soo gatay iyo 110ku isaga inay macno u sameeynaysa baa laga yaabaa inuu nadar ku fulinayay baa dhici karta nadarkana 110 u ah waxaa dhici karta saasaa dhici karta wasiya dardaaran inuu fulinayay baa dhici karta oo 110ka غرض iyo ujeedo inuu kala hawa dhici karta laakiin waa qowl daciif fi madhab raajix waa saxayaayo nin lacag inta ogolaaday ka yar baabad ku heshay hadii la yiri waaba kaaga si darab ugu faa'iiday ninka waxa ma qabo wa annahu shaniya sida adharka raajixa la khiyar mal lil mushtari qofki waxiibsaday qiimihi ba qiimo ka yar buu noqday wixiyo waan ka noqon ma dhihi kartid sababtoo 110 baa ogolaaday 190 bodood kama keeni kartid walaw za'ama haduu sheegto annahu bai'u 110 110 inuu ahaa baa'ici wax ka iibinayay waxaan 110 buu igu fadhiyay asalkiisi ee intaan ku gatay iyo intaas oo faa'iido iga siisu ku yiri wasaddaqahu almushtari qofkii ka iibsanayna waa u rumeeyay lam yasih albay'u bay'u asih ma ya fi al-asah sida raajixa haduu markii hore ina yiri baacu 110 buu ahaa kadibna ay soo baxda inuusan 110 ahayn ma asaxay buu sida raajixa khilaafka asxaabta qultu nawawi waxaan ii wari ala saxu sida raajixa saa raafici sheegay ma ahane sixatu inuu asaxayo sida masaladii hore way 100 haday 9 noqoto asaxday 110 haday hadhow 100 ama 9 noqoto inuu asaxana waa la mid buu leeyahay وهو كذلك وإن كذبوا هدو بينيه ورا 110 بيقول جوغي بو يري رحبه كما جيراتري ولم يبين منع عدين لغلطه انه غفسن يهي بنتي انه غفي وجها وجه ما عدين محتملا وصوره قال لم يقبل قوله لا اقبل مايو ولا بيرته مخراتيس هدي نينكي يراهدو انتاسو يغو جوغي oo qofkii ka iibsanayay uu yiraahdo waa beenta waxa kama jiro kadib meesha waxa ku jirta isna uu qirta inuu beenti yahay waa qirtay wayna cadaatay waxa la leeyahay maxaad saa u tiri wixii ka qaldamay wax qaldami kara haduu yahay qaabka wax uga khaldameen haduu si laga rumaysan kara sheego waa laga aqbali haduu waxa la rumaysan karin sheego qofku number isu eg buu isku khaldi karaa laba number baa iga iska daba maray buu dhihi karaa markuu qofku aad wax sheegata cudur daar dadkana aad tiraada saasa wax iga khaldamay de laba mid bay noqon in la yiraahdo waxani waa wax dhici kara waa laga aqbali cudur daar bad yeelan in la yiraahdo labadani isku ma khaldami karaan abaabu nikah iyo talaaqna waa ugu tagi doonaaye ninba islaantiisa haduu ku yiraahdo yaa taaliq haduu ku yiraahdo tii furayday kaale haduu yiraahdo oo yiraahdo magaceedii baa iga khaldamay waxa la leeyahay xaaskaagu magaceed haduu yiraahdo haday magaceedu taaliq la yiraahdo taaliq way isu dhow yihiino waxa la leeyahay orod dhaara inay ka khaldamay magaca reerkaagu waa reerkaagu xaq aan furo laakiin wuxuu yiri faaduma la yiraahdaa فاضمه يا طارق ده اسكو خلدمي كرام لو اسكو خلدمي كرتا ماها ولذلك يتنوا كانوا حي هذان اذا كان وجه العذر ليس ببين فان اطراح العذر خير من العذر واحد كو عذر دارنيس wax meel mari kara haduu san ahayn inaad cudur daaran ba ka roon edebaan dhabarkeedu muuqataan noqon waxaan hadii aad waxaan jirin inaad maluuqayso tii hore been baa lagu haystay tan labaadna been labaad baa lagu arkay mid labaad buu si sheegayo wasiin dhaadag yahay sadarteed wuxuu yiri wa in kadabahu mushtari wa hadu beeriyo walam yubayyin usan cadaynin qofkii baayic ahaaye qirta inuu khaldamay li ghalatihi qaladkii ka dhacay qiimaha uu sheegtay wajhan haduusan waji qaab uu khaldamay cadaynin muhtamalan la aqbali karo lam yuqbal qawluhu la aqbali maayo wala bayyinatu marxati hatta adu kale laga yeeli maayo adiga been baa sheegtay been aan waji lahayn oo qirsantahay been inay ahayd
waxaan la aqbali karin markhaatigiisana yeeli mayno mas'aladaasi kitaabu dacaawa walbayinaat bay asal la leedahayo dacwooyinka qayb aan la aqbalin baa jirta waxaa jira maxkamadaha intaad timaadood soo dacwooto oo lagu dhagaysto in lagu xidho adiga ama lagu garaaco ama bax beenala yuridda ka bax lagu yidhahdo way dhici kartaa agu haddaad soo dacwooto oo nin kula eg dhahda anaa dhalay dacwo in la qaado u baahan miya nin kula eg saa ninkaa weyn baa tiri anaa dhalay waa ilmahaygi dacwadaasa de markhaati keeniyo hala soo fadhiisti iyo in wakti iyo dad iyo lagaga dhumiyo dacwo mudan ma aha war beenaalaa tahay baa lagu dhihi tag war yaa soco haddaad sii adkaysana waxaa la dhihi kan xidha xabsiga dhiga dacwo aan la aqbalin baa jirta fuqahada qaar waxay ku dareen xaas ninkeedii la nool oo weligood reerun deganaa oo muddadaa uu noolaa sanado ka soo wareegay reerka dhibana uusan jirin hadday sanado kadib weligii bil ima siinin dhahdo reerinta ka bax baa la dhihi reer intaa deganaa asalku ninka reerka inuu biisho ahayd haddaan bil jirinna qaylo hore inay yaadhay ahayd waxaa lamid ay dacwadaa bayaan la aqbalina halkan aad degan tahay guri baa nin dumiyey markuu dumiyeyna wuu qoday markuu qodayna wuu dhisay intaa waa taagnayd markii la dhisaa tiri gurigan anaa iska lahaa la dumiyey iyo booskaba waxaa la leeyahay ninkan meesha dumiye ma nin madaxu ahaan jiray oo laga cabsado haddii haa la yidhaahdo ninkan uu cabsaday waa la dhihi karaa hadduu ninkan dawladii waxba uusan haysanin oo laba shacaba aad ahaydeen aan waxba kaa roonayn oo hadda aad tiraada guriga anaa leh war edab melidiridda ka bax baa lagu dhihi maxaa yeelay nin dhan oo gurigiisa la duminayo oo la qodayo iska aamusan caqli maaha wax suuragal la aqbali kara nin maalkiisii oo marka la duminayo in la dhisi doono war uma hayee soo inuu dhawaaqo qaylyo ma hayn gurigaan iga dumina inuu yidhaahdo ma dhihin waa la qoday ma hadlin waa la dhisanayaa waa la kala gadgadanayaa ma hadlin waa dambu yihi guriga anaa lahaa caqligiisina wuu qabo qof waa laayo dib ka soo miirsaday ma ahayn qof maqnaa oo yimid waa loo garaabi karaa qof waa laa oo miirsaday waa loo garaabi karaa qof ninka madaxa meesha uu samaysanayo shacab ahaayoo miskiin cabsaday ama waxoogay qoys meesha looga badan yahayo maryaantii reer hebel ay boobaysay waa loo garaabi karaa intaaba waxaan ahayn marka wajhan muxtamala way intaasoo dhan wax dhici kara waxaan dhici karin haddaad keento waxaan lahaa guriga si fiican ha kugu dhiso iyo si unba iga hoos baxday maalin kasta waan taagnaa mana arkaynin waxaa lagu leeya adeer laqdabaad wadaaye wakti dhumis baad wadaaye wakti naga dhimin maysaa soco marka halkan waxaan rabaa inaan ku ishaaro abwaabu dacawaa walbayinaat waxaa ku iman doonta dacwaa laa tuqbal dacwadaan laba aqbal aan dhegaysanaynin ninku hadduu si adkeeyana isagaa tacziir iyo edbin u baahan marka ninkani taasuu la mid yahay been baan sheegay haye waanan qirtay haye waxay khaladka suu iga dhacayna si dadku aqbali karaan waan waayey haye markhaati baan keeni war adiga markhaati aad ma rabnay socaal lagu dhihi waqti anaga dhumin walahu wuxuu leeyahay taxliifu lmushtari ninka ka iibsanayuusan dhaarsan karaa annahu isaga gada ka iibsanaya laa yacrifu daalika inuusan garanaynin fi lasaxi sida raajixa haddiise uu ku doodo warnihu khaladka saa iga dhacee inay saas tahay isagaba wuu ogyahay oo waan is ogeyn oo ku yidhahdo war kulama ogeyna baxu ku yidhaahdo muddaci iyo muddaca calayhi baad noqonaysaano walbayinatu alyamiinu calaa man ankara adi markhaatigaagii la diid laakiin isagaa laguu dhaarin wain bayana hadduu caddeeyo wax suuragal oo la aqbali kara hadduu sheego falahu taxliifu sidoo kale haddana inuu dhaarsadana wuu leeyahay sidoo kale walasaxu sida raajixa samaacu bayinatihi markhaatigiisa in lama dhegaysta wey marka suuradan iyo suuradii hore farqiga udhaxeeya tiina naqsi baa caddaaday tanna ziyaaduu sheegtay 100 baan kaaga gadaye laakiin 110 buu ahaa nin ku doodaya wey war naga tag buri beenaalaatee 110 ma ahayn war adoo isagoo 110 seed 100 u tiri waxaanu iri waxbaa iga khaldamay say kaaga khaldameen caddee wuu caddayn waayey markhaati lagaa yeeli maayo laakiin hadduu caddeeyo si suuragal ah markhaati keen baa la dhihi ku kabo hadalkaaga kaba kadibna intii iyo faa'iidada kor loogu dalici ninkii mushtariga ahaa intaa waa saddexdaa bayc iyo wixii ka dhashay halkanna beeralayda beecii beeralayda waa dad mujtamacu qaybna waa beeraley qaybna dalaga beeraha ka soo go'a bay ka ganacsadaan duuga ganacsigana qayb weyn bay kaga jiraan miraha laga ganacsado midhaha haddii laga ganacsanayo
dadna beeraan dadna iibsanayaan lasii kala iibsanayo iyadana qaabka beeca ku asixi lahaa baabuusuuli waimaari way baabuusuuli usuushu waa geedihii waimaarina waa midhihii ay soo saareen geedku waa cambe geedku waa moos geedku waa liin geedku waa timir geedku waa cinab wuxuu dooni ha noqdo marna waa midhihii baa la iibinayaa marna geedkii baa la iibinayaa marna waa la isla wada iibinayaa axkaam badan baa ka dhalanoo marka la isla iibinayo axkaam bay yeelan marka la kala iibinayo midhuhu heerkuu marayaa saamayn yeelan midhuhu heerkeebuu marayaa saamayn bay yeelan heer la ogol yahay iyo heer aan la ogolayn in shuruud lagu xidhan mooyeen buu yeelan kadib haddana waxaa iman geedkii iyo midhihii markii la gadayo waxa lagu gadaya muxuu yahay aduu midhahaan kaa gadanayaa anugu waxaan ku siinaya muxuu yahay ma lacag baan ku siinayaa ma midho kalaan ku siinayaa ma badeecad baan ku siinayaa iyadana axkaam bay yeelan intaasoo dhani waa nooc suuqi iyo ganacsigii ka mid a inaan barannaan iyadana u baahannahay axkaamta marka la jidaynayo laga hadlaya beeca aduu haddaad dhar iyo ka ganacsato dad baa dhir iyo midho ka ganacsada kuwaana axkaamtoodii dhegaysta iyadana innagu waxaan u malaynaya halkan beeraley ma nihine laakiin midho la soo gatay baanu sii gadannaa mooskaynu gadannaa qarahaynu gadannaa khudaarta iyo liintaynu gadannaa midhaha aynu gadanayno way waxa laga hadlayo qaala low qaala idaa qaala hadduu yidhaahdo bictuka waxaan kaa gaday haadihi alarda dhulkan aan kaa gaday aw isaaxata bannaankan aan kaa gaday aw ilbuqcata goobtan aan kaa gaday wa fiihaa waxaa ku yaalla binaaun dhismo iyo wa shajarun geedo nin hadduu yidhaahdo warniyow dhulkan aan kaa gaday ereygaasuu isticmaalay dhul ama wuxuu isticmaalay bannaankan aan kaa gaday meel bannaan buu yidhi intaa furan baan kaa gaday ama wuxuu yidhi dhulku markuu siman yahay meelaha kore ba wuxuu yidhi intan taagga ee koraan kaa gaday intii ninka loo sheegay in laga gaday dhismana waa ku yaallaan geedo midhalena waa ku yaallaan asna waan aqbalay buu yidhi qiimuhu waa intaasaan kala iibsannay maxaynu kala iibsannay marka dhismuhiiyo geeduhu ma ku jiraan mise kuma jiraan dhismihiiyo geeduhu ma soo gelayaan mise soo geli maayaan wixii dhulkaa ku aasnaayey ma soo gelayaa mise soo geli maayo dhulkii adigaba gaday hadhow hadduu dhul dhagax iyo macdan laga helan yahay oo ilaahay ku abuurayba dhagaxa iyo macdanta yaa leh maaligii kaa iibsaday baa leh mise adigii iga gaday baa leh berri waa la isqabsan karaa soo maaha intaba waraan dhulkan kaa gadaye gurigaygan waan duminoo alaab dhagxanta waan raran buu dhihi karaa warniyow geedahaygan waan fujisan oo meel kalaan ku tallaalan ma dhihi karaa warow anuu dhul baan kaa gadee niyahow macdan kaama gadine macdantan hadday soo baxday anaa iskaloo la noqonaya ma dhihi karaa haddaad dhul iga gado dhulkii wixii ku jiray ma iga gaday mise gamaada gadin falmadhabu madhabku waxaa waaye annahu yadkhulu fi lbayci bay gelayaan duuna arahni rahantu geli mayso haddii ay meeshii ku dhex jirto hanti iyo rahan loo haystay ama alaabaan rahan u hayay oo meesha sidaa u tiilay alaabtaasi geli mayso wax rahana geli mayso rahankuna waa wax hadda damaanadda loo yaqaano damaanadda lagaaga haynayo ama garantiga hadda ay luqadahan ku yidhaahdaan ama inagu curaadha aynu dhihi jiray waayo wa usuulu lbaqli khudaarta salkeedu wuu gelayaa allatii tabqaa jiraysa sanatayni kalqati waalhindibaayi wa usuulu lbaqli khudaarta salkeeda hoose allatii taasoo tabqaa sanatayni 2 sano jiraysa kalqati waalhindibaa'i weeye ka shajari geedahay la mid tahay meeshaa wixii ku yaalla ee khudaarta 2 sano jirta qati baalkan qajaarka la yidhaahdo wey hindibaana waa nooc kabajka ka mida waaye kabajka gudguduudan waaye kabajka qaar yar ka laroo yar gudguduud ku jira kaasaa hindibaa la yidhaahdaa marka haddii aad tiraahdo
dhulka waan kaa gaday khudaarta ku taalla wixii 2 sano iyo jiri kara sida kuwaas oo kale kolba caleentu intay baxda laga goosanayo sida geedihii waaweynaaba ay la mid tahay oo beecay raaci qofkii gatay dhulka iska leh aaga qofkii laga gaday beecay ku jirtaa ee gashay halka waxaad ka fahantay wixii yar yar ee marka bila lagu goosanayo beeca geli maayaan oo ninkan uu fujisan karaa oo wax hanti rasmi ah maaha waxana waa hanti rasmi ah walaa yadkhulu geli maaya sidoo kale ma yuukhadu wixii la qaato dafcatan hal mar on kala harin ka xintatin qamadiya wa shaciirin haadi way iyo wasaa'ir zuruuci beeraha intooda kale bariiskii iyo galeydii iyo geli maayaan dhulka laga gaday sababtoo ah geed iyo midho kala harama wala haba galay hadii la goosto iyadana cadbalkeeda in la daaqan waay bariiska hadii la goosto iyadana in la guro waay kuwa saas aan sal kala hara lahayn waa wax markaaba israaco waxaan ti rasmi oo meesha ku hadha maaha hadiiba dhul laga gaday wixii rasmi ee dhulka ku nagaada baa raacaya wayasixu waxa saxaya bay'ul ardi dhulka in la iibiyo almazruucati beeran ala almadhhabi sida raajixa dhul inaad iibisa way banaan tahay ay beeri ku taalo geedihi maaha shajar iyo zarci baa kala laba ama azarcu wa thamaru waa kala laba thamar haday fuqahadu isticmaalaan waa midhahan baxa geedkuna uu baaqi noqdo way sida timirta iyo cinabka iyo cambaha iyo mooska iyo qaraha iyo kuwana thamar la yiraahdaa zarci hadaad maqashana waa kuwa midhaha iyo geedku aynan kala harin way sida qamadida iyo galeeydeena iyo bariiska iyo waxa la midka ah marka la goosto geedkina dhimanayo halka mar dhala zarci baa la yiraahdaa waxa kolba dhalana midhaha thamar baa la yiraahdaa saasay u kala isticmaalaan marka waysiixu bay'ul ardi dhulkii in la gada way banaantay la iibiyo almazruucati la beeray zaraca midhaha iyo geedku ayna kala harin waa ala almadhhabi sida raajixa walilmushtari qofkii ibsaday alkhiyaaru inuu ka noqdo beecu leeyahay in jahilahu haduusan ogeyn inay beeran tahay dhulka aad ka iibisay inuu beeran yahay haduusan ogeyn markuu ogaado beeca inuu ka noqdo xaq u leeyahay walaa yamnacu zarca midhaha diidi maayo man midhaha kama reebo dukhuulu lardi dhulku inay gasho fii yadi lmushtari ninkii iibsaday gacantiisa iyo wa damaanuhu inay damaanadiisa ku wareegto idaa xasalat hadday hirgasho attakhliyatu u banayn fi lasaxi sida raajixa beertii dhulkii beernaa haddii la iibiyo beeci wuu asaxayaa hadduu ogaana khiyaar ma leh hadduusan ogeynna khiyaar buu leeyahy ayib hadduu ogaa ama uusan ogeynoo uu sidii ku aqbalo dhulkii waa lagu wareejin karaa isagoo beeran diidi mayso in midhahaan dhulkaan kaa iibiyey ii beeran yahay inaan dhulkii kugu wareejiyood adu yeelata mas-uuliyaddiisa hadduu dhintana dhulkii wax gaadho adiga kaa gaadho isdiidi mayso anoo midhihii iyo beertii leh yaa dhulka kugu wareejin mar haddaan kaaga dhexbaxo oon ku idhaahda dhulkii wakaa xuduudihiisii waraaqihiisii albaabadiisii oodiisii la wareeg haddaan ku dhaho adaa iska leh maxaa soo hadhay dhul aad leedahay oo beertay a ku taalla waay dhul aad leedahay soo intaa kaa kiraysta ma beeran karo oo adigoo dhulka milkigiisii leh anigu beerta ma yeelan karo soo intaad caariye ii siiso fii sabiilillaahi sanadkan iska beera beertaadi dhahdo adoo dhulkii adigu leh aniguna beerta midhaha ma yeelan karo haddaan dhulkii kaa iibiyey anigoo beerta leh milkiyaddii dhulka waan kugu wareejin karaa anoo beerta milkigaygii baaqi ku yahay isdiidi maayaan dhulkiina adi inuu kugu wareego beertiina anigu aan yeesho oon la hadho saasuu yidhahdaa walbadru abuurkiiyo midhuhu kazarci beertii taagnayd buu la mid yahay abuur ku jira dhulka lagu abuuray oo aan weli soo bixin iyo beerta soo baxday isku xukun waaye haddii aad jaahil ka ahayd khiyaar baad leedahay haddaad ku aqbasho ama markii horeba ogeyd anoo midhihii beertii abuuran tahay abuurkii igu jiro waan kugu wareejin karaayoo diidi mayso wala saxu sida raajixa annahu shaaniye laa ujrata ujro qaadan maayo iyo kiro qaadan maayo lilmushtari qofkii iibsaday muddata baqaa'i zarci
inta beertaasi meesha ay ku taallo ilaa beertaasi iga baxdo oo iga bislaato wax kiraa ku siin maayo sababtoo ah markii hore adaa raalli ku noqday markii dambena khiyaama haddaadan ogeynna khiyaarkaad lahayd adaa raalli ku noqday ridahaagaasi wuxuu ka dhigan yahay inaad muddadaa cafiday bay ka dhigan tahay walihaadaabaa khiyaarka laguu siiyey khiyaarkaa uu ka noqo haddii kale ijaar la-aan bay ilaa beertaa ii gooda meesha igu ooli anigana iima diidi kartid beertayda inaan soo galo laakiin aniguna waa inaan si aadaab iyo nidaam laku soo galaa waa inaan imaadaa inta kalena adigana hantidaadii ilaasho anna beerta iyo midhahaygaan ilaashan heshiiskaa saas keenaya beeca aad ku aqbashay baa sidaas keenaya walow baaca hadduu iibiyey ardan dhul buu iibiyey qofkii maca badrin abuuruu ku maqan yahay aw zarcin ama beeri ay ka taagan tahay laa yufradu bilbayci midhahaas iyo beertaasoon keligood la iibin karin baطala waa burayaa fi ljamiici dhammaan wa qiila waxaa la yidhi fi lardi dhulka qowlaani laba qowl baa ku jira wuxuu leeyahay halkan waxaad ka garatay takhsiis iyo qeyd buu hada xukunkii hore u yahay dhul waad iibin kartaa beeran waxaa hadda la iibiyey waa dhulka laakiin haddii aad dhulkii iyo beertaba isla iibiso waxaan kaa iibiyey dhulkan iyo beerta ama dhulka iyo abuurka ku jiraba waan kaa iibiyey abuurkan dhulka ku maqan inuu bixi doono allahu aclam beertan abuuran laba marxalay martaa xilli la gadi karo oon arki doonoo midhuhu soo yar bislaaday iyo inta ka horeysa haddaad dhul iyo beeris la gado waxaan leenahay midho dhul ku abuuran iyo beer aan xilligii la gadayay gaadhin hadday tahay beecu asixi maayo waayo tani qarar iyo jahaalaa ku jira waxaana la garan waayayaa waxa aad gadanaysa ma dhulbaa mise beertaad gadanaysaa mise waa isku gadanaysa haddaad isku gadanayso maxay noqonaysaa waqiila waxaa la yidhi fi lardi qowlaani beeca midhaha asixiba maaye midho dhulku aasanoon la arkin isagii baaba majuula beer dheelli ah oo inay bixi doonto aan la aqooninna iyadii baabaan la garanaynine waxaa lagu buriye waxaa dhulka qowl baa jira inuu asaxayo qowlna ma asaxayuu leeyahay saasay yidhahdeen wayadkhulu waxaa gelaya fii beyci lardi dhulka marka la iibiyo alxijaaratu dhagaxa almakhluuqatu alla ku abuuray fiiha dhulka dhexdiisa wixii khayraad ee dhulka ilaahay ku abuuray ama dahab ha kuu noqdo ama dheemar ha kuu noqdo ama gaas iyo shidaal iyo batrool ha kuu noqdo ama cusbo la jeceliya ha kuu noqotee wixii dhulka ilaahay ku abuuree laga helo beecu raacaya duuna almadfuunati wixii ku aasnaan laakiin raaci maayo haddii meelaan ka qotay dhulka bakaaraan lahaa alaab iigu jirtay alaabta ammaane ii taalla weeye waxay la mid tahay guri alaabtaa la haddaan guriga kaa iibiyo dee alaabta taalla waan raran oo kaama iibinin bay la mid tahay waun alaab meesha ii tiilay waayo walaa khiyaara khiyaar ma leh lilmushtari qofkii iibsaday in calima hadduu ogaado haddii alaab meeshayna ii taalla uu ogaado ama alaab iigu aasan tahay hadduu ogaa isagu khiyaar male in calima hadduu ogaa markaa idinkaa iibsanayey in bakaari igu taallo alaabna iigu xaraysan tahay haddii aad ogeyd beeca khiyaaraad kaga noqota malihido siday xeshay ceeb lahood gadatay ood raalli ku noqotay ila dhulka qodanee godka laga qoday waa ceeb dhulku yeelanayo shaygan ceebtiisii adoo og haddaad ku iibsatayna dee adaaba raalli ku noqday wayalzamu waxaa ku waajiba albaayica qofka iibiyey annaqalu alaabtiisi inuu daldashaa waajib ku ah haddaad guriga dhulka iibisay alaabtaada raro kow wakadaa waxaa la mida oosan mushtarigu khiyaar lahayn in jahila haddii uusan ogeyn in meesha wax ku aasan yahay walam yadura aynan dhibaynin qalcuhaa fujinteeda iyo wixii qaadashadeedu wixii in lagala baxo haddayna dhib aba dhulka soo gaadhsiinaynin wax khiyaara malihid sababtoo ah khiyaarku wuxuu ku salaysnaa ceeb iyo darar inuu jiro ceeb iyo dararba haddaynan jirin wixii saad ku gadatay wayay qaado waa in darra hadduu dhibayase falahu khiyaaru khiyaar buu yeelan anugu dhibkaa raalli kuma noqone waa inaan khiyaar yeeshaa
waxaan kaa iibsaday godadka bakaaraha ka soo baxeen fain ajaaza hadduu baneeyo oo yidhahdo waxa kama qabee waxaaga daldala hadduu yidhaahdo lazima albaayica qofkii iibiya waxaa waajib ku ah annaqlu alaabtiisa inuu rarto wa taswiyatu اlardi dhulka inuu simo hadduu geed ka fujiye iyo haddii uu bakaar ka qodayba ka fagta oo kala baxayba inuu dhulkii simo oo si caadi oo dabiica ku soo celiyo baa laga doonayaa kharashka yaa bixin baayicaa bixin ilaan dhibka isagaa geystay wa fii wujuubi ujrati اlmili ijaar wixii la bixin lahaay oo kale inay waajibayso muddata naqli xilliga la raraya alaabta awjuhun dhowr wej oo khilaaf oo asxaabta shaafici baa ku jira waxaa la yidhi ninkan bakaar baa ugu jirtay alaab baa u tiilay haddii aan ka gaday oon ogolaado maanan ogeyn laakiin waan aqbalay markii dambe beeciyo alaabtaan iga daldalaan ku idhi mudday ku qaadatay muddadaa ijaar ma iska bixinayaa xaq mau leeyahay adeer muddadaas iyo intaad daldalanaysay haddii bil noqoto 10 beri bay ahayd hadduu bil kuu yaallo ood bil kiraysata intaasay ahayd bishii 3 meelood meel 10 beri weeye qiimaheedii iska bixi ma la dhihi karaa oo kira qofkii ma laga qaadi karaa asxaabu shaafici dhowr bay isugu khilaafeen wej bay isugu khilaafeen oo dhowr qaybood bay noqdeen asaxuha kan ugu xooga badan tajibu way waajibaysaa ijaar baa laga qaadan karaa in naqala hadduu raro bacda alqabdi markuu guddoonsiiyey kadib walaa qablahu ka hor samaya hadduu alaabta rartay intuu alaabta dhulkii wareejiyey kadib hadduu raranayo ijaar waa laga qaadi karaa intuusan wareejinin hadday ahayd wuxuu rartayna ijaar laguma laha maxaa yeelay intuusan wareejinin damaanadiisay ku jirtayoo wixii gaara xoolo isaga ka dhimanayo dhulku ahaa ninka xoolihii isaga ka dhimanayeyna ijaar ka bixi lama dhihi karo mar hadduu wareejiyeyna xoolo dad kala yeesheen weeye waan intifaacsan alaab baana ii ooli ijaarna la igu yeelan maayo aan la igu sadaqaysanin xaquma lihid mar hadday milkigaaga ka wareegtood guddoomisay ood guddoonkeedii wareejisay de idan baad u baahnayd isticmaalkeedana waa xaq iyo manfaca dad kalood isticmaalaysa wey ijaarka inaad iska bixiso waa lagu leeyahay marka wayadkhulu waxaa gelaya fii bayci lbustaani beerta geedaha haddii la beeciyo beerahan geedaha ah waa laga shaqeeyaa waxbaa loo sameeyaa waxaa gelaya alardu dhulka kowdhe washajaru geedaha ku yaalla iyo walxitaanu gidaarka ku wareegsan wakada albinaaw dhismaha loo sameeyey ama dhirta ha loo sameeyo geedahan cinab yar oo guryo iyo dhismi yalahoo isku go-an baa qaryo la yidhaahdaa wa fii bayci alqaryati qaryadan haddaad iibiso innagu dee hadda saaad u fahantaan hadduu isteed u dhisa iibiye dheh jidad buu leeyahay meel biyo mareenna uu leeyahay meela yaryaroo beero uu leeyahay guryo iyo gidaaro dhisan buu leeyahay hawl badan baa meesha laga qabtay soo ma alabniyatu dhismaha gelaya wasaaxaatun meelaha bannaan ee barxooyinko yuxiitu biha suuru derbiga kore oo gudihiisa ku jira oo derbiga kor ka xidhay baa soo gelaya lalmasaaricu meelaha beeraha ah kuma jiraan cala saxiixi si raajixa hadda innaga jid iyo beera iyo maba macnaba ma lahaba dowladdaaba iskale hadda sistamka cusub ee magaalada isteedyada markaad dhistaan jidadka dowladda yeelan soo mid arag markii milkiyadda la samaynayo jidka milkiyad gaara loo samayn dowladda leh cid kalea ma qaadan kartaba hanti dowladeedu dowladdu waardiyeynaysa in lagu tuntay noqon wa fii bayci daari guri haddaad gado ama dabaqyo ha noqdo ama hal guri ha noqdee alardu dhulku way geli wa kullu binaain dhismo kastoo gurigaa ku dhex yaallana wuu geli xataa xamaamaha taniyo musquluhu way geliya meelaha qabayska lalmanquulu alaabta la rari kara ma galaan kadalwi wadaantu geli mayso walbakarati ceelka waxa lagu daboolo wadaanta maahane ceelashu karkaar daboola oo laga qaadi kara yeelashaan mararka qaarkood oo loo sameeyaa kaasi geli maayo wasariiri sariiruhu geli maayaan war gurigaan kaa gadaye sariirahayga waan daldalan baad dhihi watadkhulu laakiin waxaa geli alabwaabu albaabada almansuubatu laga taagay lagu rakibay iyo waxilaquhaa xalqadaha faseexadaheeduna way geli albaabka ku rakiban gurigu ka mid yahay fasaaxadaha ku rakiban iyaguna gurigay albaab ka mid yihiin iyo walijaanaatu
meelaha dhardhaqa meelaha shamiintada intii laga sameeyey dharka ha lagu dhaqaya loo diyaariyeyna iyagana way geli. muxuu yidhi warafu shalfisada iyo khaanadahana way geli. dad guriga samaysato khaanadaha iyo armaajooyinka waan fujisan gurigaad gaday lagaa yeeli maayo, ama jikaha ku yaalaan ama guryo jiif iyo fadhikay doonaya ku yaalaan. wasullamu jaranjaraduna way geli. almusamaraani waa rafka shalfiska iyo jaranjarada meesha ku musbaaran waay. laakiin jaranjarada guriga dhextiileed kolba meel ku fuulaysay sariirta in la xugunta oo kuma jirto. rafuufta armaajadaad banaanka taa ka soo gadatay iyo tii sariiraha agtiilaye alaabta aad gashanaysa la qaadqaadayeyna geli mayso. laakiin wixii guriga ku samaysan oo derbiga iyo ku musbaaran gurigay ka mid taha ma taaban kartid. wakada alasfalu kan hoosana ma taaban kartid min xajarayi raxaa dhagaxan wax lagu shiido sinsintiiyo saliidda lagu shiido kiisa hoosana ma taaban kartid, waayo asal ahaan dhulkuu ku rakiban yahay cala saxiixi sida raajixa. wala calaa ka korona ma taaban kartid, oo ka kolo waa la qaadi karaaye kan koriya kan hoose ma kala hadhaan. adu weel iyo daboolkii la kala qaaday xaggeed ku aragta? haddaad tiraahda kii hoose haddii la reebay dee nin digsi iibsaday daboolkiisa kalama hadhi kartid, wayna soo socotaa. waa miftaaxu qalaqin quful iyo xire furihiisana wuu geli. qufulkaasoo muhbatun la sugay fil asaxi sida raajixa. qufulka albaabka ka midka ah furihiisana waad reebi. qufuladu midna waa midka intaad furto aad la baxdeed jaabka gashato, midna waa kuwa albaabada ku samaysane furaha la geliyo. albaabka qufulka ku samaysan furihiisana waa inaad reebtaa, wailaa see la dhihi adigaa furo keligii wax kuu tari maayo, qofkana quful keligii wax u tari maayo. waxyaabaha in la kala gada aan la ogolayn bay ka mid yihiin. labada kabood iyo furaha iyo qufulkiisi iyo bahalkan lagu shiida bahashaas qaybta kore iyo qaybta hoose iyo waxaa la yidhahdaa digsiga iyo daboolkiisi iyo dee lama kala gadi karo. waa laba shay un kala hadhin waay, mutalaazimeyn waay. kadib wuxuu yidhi mualifku wa fii bayci daabati gaadiid haddaad gado waxaa gelaya nacluhaa kabaheeda gaadhiga taayiradiisii dheh. nacluhaa kabaheeda waa taayiradii way gelayaan. adeer gaadhigaan kaa gadaye afarta taayir baan kala bixiye adu xambaaraba taayiro keenso sax maaha. gaari haddaad iibiso taayiradiisu ay ku jiraan. ko wakadaa hiyaabu lcabdi addoonka dharka uu xirto fii beycihi bay gelayaan fil asaxi sida raajixa. daabadii waxaa la mid a addoon baad iibisay dharkiisana wuu raaci. qultu waxaan idhi alasaxu sida raajixa laa tadkhulu geli mayso hiyaabu lcabdi addoonka dharkiisu geli maayo. wallahu aclam. waayo xadiid baa ku soo arooray qofkii addoon iibiya dharkiisa ciddii iibisay baa iska leh ilaa an yashtarita almubtaacu ka iibsaday inuu shardista maahane. halkaa waxaad ka gartay ninka addoonka iibsaday shardi buu ku raaci karaa dharku, waayo addoonkana waa maal, dharkuu qabana waa maal. anaa isla lahaa addoonkan kaa gadaye dharka kaama gadin. laakiin waxay yidhaahdeen waxaa raacaya inta cawrada asturaysa waa waajib inay raacdo. laakiin adigoo dhar usoo gado anintan iyo kastuunka waan kala bixiye taayada lama ogolo meesha kuma jirto. cawradiisa in la qaawiye qadarkaan banaanayn uu raacayaa. farcun wuxuu yidhi baaca idaa baaca hadduu gado shajaratan geed buu gaday. geed midhood wey, geed baa la gaday marka laydin leeyahay geedahan midhaha dhala wey, ama cambadhe ama moosdhe ama qaradhe ama timirdhe ama cinab dheh waxaa dooni dheh. baaca idaa baaca hadduu gada shajaratan geed dakhala waxaa gelaya curuuquhaa xididadeeda iyo wawaraquhaa caleenteeda. salya baar way gashay dheh. wa fii waraqi tuuti geedka tuutka la yidhaahda caleentiisa wajru wej daciifa ku jira. culamada qaar ba waxay dhaheen geedka tuutka la yidhahda warqadiisu waa daawo, waana geedka badanaa dawooyinkan sonkorta waxyaabaha laga sameeyo ku jira. isagoo laga samayna haddii la isticmaalo shahaan caleentiisa loo isticmaalana insulinta sonkorta la isticmaalo booskeedu galaa. laakiin khadhaadh waa kan anoo soomaali kuma aqaano, laakiin waa geed caleema waaweyn oo balbalaaran oo khadhaadh la wey, isaguna gaagaabanoo intan leeg markuu baxayo.
midhaha uu bixiyo midho kuuskuusan oo yaryar oo sidii rucub dheera noqda marna kuustoo guduud u badan waya midhihiisu markaad banaanka kore ka soo aragta markuusan aada midhuhu u dheerayn waxaabaad moodi bahalkan dee carabtu faraawalaha ay yidhaahdaan qolyahan kalena ay stroberiga yidhahdaan soomaliya maxaa lagu dhahaa midhahan guduudane soomaali ma lehe innagu hede beerta waan liidi jiray saa darteed wixii khudaar iyo geedo ahaa iyo dhir ahaa la cuni jiray magacooda qaamuuskeena kuma jirto qoladii soomaaliga qortayna qolyaha beeraleyda qayb lagagama darin baan u malayn markii soomaaliga waagii inoo qoray inayna qayb beeraleyda ku jirin baan u malayn ilaa magacyada badaana dhirta iyo beeraha waa lagu dari lahaayo waxun baa laga yaqiinay marka kaasaa tuut saas geed saasa wey wa agsaanuhaa waxay ku cadfan tahay waraquhaa dakhala curuuquhaa wa waraquhaa baa gelaya caleenteeda iyo waaqsaanuhaa laamaheeda ila alyaabisa kan ingegan geli maayo manfaco male ha gurto xaabaha ka dhigta hadduu raba isagu wayasixu waxaa asaxaya baycuhaa geeddii in la gado bisharti alqalci aw ilqaci geedda waa la gadi karaa haddii shardi laga dhigo bisharti alqaci in la gooyo aw ilqalci ama la fujiyo geed midho dhalisa oo dhulku anu aan leeyahay geedda waan kaa iibin karaa laakiin waxaa shardi ah dee geeddaada inaad idhaafisa inaan ku daro haddii wax la fujiyo tahayna fujiso wax la gooyo hadday tahayna gooso laakiin bisharti alqalci aw ilqaci baa bannaan waayo waxaa halkaa laga jawaabayaa ishkaal aad isweydiin lahayd haddii dhulka anu aan leeyahay hal geed oo geedihii ka midana aan kaa gado hareerihii dhulkiina anu aan leeyahay geedkaagii xaggeed u mari si aad u isticmaali dhulkaygii saad idan la-aan u dhexmari ishkaalkaa si looga baxo geedka waa la gadi karaa laakiin waa in lagu daraa shardi geedka in la goosto ama la fujisto si loo kala baxaba dee banaanka loo kala maro wa bisharti libqaa'i shardi inuu ku yaallo ahna waa lagu xayn karaa shardiga inuu ku yaallo haddii lagu heshiiyo almuslimuuna calaa shuruutihim wey waliطlaaqu haddii la iska ilaaqo geedkaa niga gad la yihahdo on kaa gado yaqtadii wuxuu keenaya alibqaa inuu ku yaallo meesha haddii aan shardi goyn iyo jaris lagu fujin lagu xidhin haddii aan niraana ha ku yaallo iyo haddii aan geedkan aan kaa gata idhaahdo labadaba ha ku yaallo waay walasaxu sida raajixa annahu shaaniye laa yadkhulu beyca geditaanka geedka ma gelayo almaqrisu meeshuu ka tallaalan yahay adu milkin maysid geedka iyo xididihiisaad leedahay laakiin dhulka uu ku yaalla malihi adeer geedku intuu ku tallaalan yahayna anaa yeelanaya maya almaqrisu meeshuu geedku ka tallaalan yahay ka beeran yahay geedkaad gadataye dhulkuu ku yaalla maadan gadan maa hiya amaratu lkhilaaf manaa faa'iidada kala reebku ama tafriiqu maxay tahay maadaama hadduuba iigu ooli karo anugun meeshii igu oolayo geedkan wad buu leeyahay wuu dhiman karaa wuu qalali karaa geedka hadduu qalalo dhulku ku yilayaane halkaasay soo kala caddaan waxaa la leeyahay geli maayo iyo wuu geli natiijadeedu markaasay soo kala caddaan laakiin yastaxiqu hase ahaatee wuxuu mudanayaa qofkii manfacatahu inuu intifaacsada meeshii ku tallaalaa maa baqiyat ishajaratu geeddu intay nooshahay intay geeddaasu nooshahay ma nafci leedahay buu meeshaa intifaacsanayaa walow kaanad hadday tahay yaabisatan mid ingegan lazima almushtari qofka iibsaday waxaa ku waajiba alqalcu inuu fujiyo geeddu hadday ingegtay dib ka ingegta ama marka horeba ingegnayd warna fujona dhaafi waayo dhulka manfacad sababtay igu sii ooli maxay tahay dhulkii bilaa manfaca inaad iga haysatay noqon adna manfaca kuma qatid adna waad iga xanibtay meel laga faa'iidaysan lahaa min jinsi idaacati ilmaal bay geli adeer fuji weeye geedka mar hadduu ingegan yahayo manfaco kale ma lahani wa amaratu nakli geedka timirta midhihiisu almabiici ee la gaday ayib geed baad gaday geed timira waan kaa iibiyey ama geed canabah geed cambe ah yaan kaa iibiyey geedkii midhuu leeyahay midhaha yaa iska leh waxaynu soo marray waxay ahayd xididaheeda laamaheeda iyo caleenteeda midhaheeda lama dhihin midhaheeda maynaan soo dhihin dhulku geli maayaan nidhi caleenta iyo xididaha iyo
laamuhuna way geli baan nidhi midhihii baa inoo soo hadhay marka wa hamaratu nakli geed timireedka midhihiisa almabiici la gaday timirta waa uu tusaale geedka midhaha bixiyo dhan baa lamida in shuritad haddii la shardiyey lilbaayici ninka iibiyey baa iskale la yidhi aw ilmushtari ninka iibsaday baa iskale la yidhi cumila bihi shardigaa lagu dhaqmi waalmuslimuuna calaa shuruutihim haddaan marka hore ka heshiinay geedan iyo midhaha saaranba adaa iska leh haddaan ku heshiinay adaa iska wada yeelan geedaan kaa iibiyey midhahaas anaa leh haddaan ku heshiinayna midhihii anaa yeelanaya haddaan ka aamusnay saddexdaa midun bay noqon kartaa soo maha inaan adu yeelo ku heshiino inaan anigu aan yeesha ku heshiino inaynaan waxba ka sheegin ama aan wada yeelanayo wax lamida timaado wa ilaa haddaan midna loo shardiyin waa la fiirin fain lam yata'abbar minhaa haddaan midnaba waxbanaba laga bacriminin shay-un waxbaba fa hiya midhahaasi lilmushtari ninka geedka iibsadaa iska leh waa weli ma dhalanin waayo wa ilaa falilbaayici haddii kale ninka iibiyey baa iska leh ta'biir waxa la yidhaahdee midhaha lagu sameeye geedaha waa la qallacaa qaybta laboodkaa inta lasoo qaada laantooda ama ubaxooda baa kan kale ubaxiisa ama laantiisa lagu qallacaa oo lagu bacrimiyaa markaasuu midhuhu fiicnaadaa taasaa ta'biir la yidhaahdaa waxaa la leeyahay haddii aynaan midhihii kaba hadlin midhuhu heerkii ma gaadhay oo qayb sidaa ma lagu sameeyey mise laguma samayn haddaan wax lagu sameeye jirin hooyadii kama hadhee geedkuu raacayo ninkii geedka gatay baa iska leh haddii lagu sameeyey midhahaasi waa ziyaado dhalataye ninkii geedka lahaan jire laga gatay buu u hadhayaa nabigaana yidhi calayh isalaatu wasalaam man ibtaaca naklan bacda an tu'abbar fahamaratuhaa lilbaayici ilaa an yashtarita almubtaac ninkii geedmiga timira gata midhaheeduna ta'biir ama tallaalidaas lagu sameeyey midhaha ciddii iibisay geedkaa iska loosu hadhayaa in la shardiyoo ninkaasu raaci la dhaha maahane wamaa yakhruju taasi waa wixii midhihiisa ta'biir lagu sameeyo midho noocyo kale a jira ama ta'biir baan lagu samaynin qaybo kale baa la kala qaadqaadayaa intii aan beeralayda ahayn waxan way ku wareeri doonaan wamaa yakhruju wuxuu uu soo baxo amaruhu midhihiisu bilaa nawrin ubax la-aan nawrku annawru wazahru waa shay waaxid midhaha qaarkii isagoo duuduuban unbuu soo baxaa qaarna marka hore ubax caleen ahaana intuu soo baxo buu kadib midhuhu ka soo dhex baxaa kuwaasaa lagu kala qaadayaa wamaa yakhruju wuxuu soo baxo amaruhu midhihiisu bilaa nawrin ubax la-aan ka tiinin weeye geedka tiinka la yidhaahdo iyo wa cinabin cinabka waaye in baraza hadduu soo banaanka usoo baxo soo muuqdo amaruhu midhihiisu falilbaayici baa iskaleo ta'biirkii bay ka dhigan tahay wa ilaa falilmushtari haddii kale cidda mushtarigaa iskale iibsatay haddii geedaha timirta iyo ta'biirka iyo qallacaadaas iyo lagu kala saarayey kuwa aan la qallicin saa lagu kala saari ee laga aamusan cidna loo shardin saa lagu kala saari waxaan leenahay kuwa ubaxa aan lahayn ee midhahoo kuusanuun horay durbo ka soo baxo kuwaasi hadduu midhihii soo kuusmay oo bannaan usoo baxo muuqdana ta'biir bay ka dhigan taho baayica iska leh haddii kalena mushtariga iska leh kuwaasaa ku kala saar wamaa kharaja wuxuu soo baxa fii nawrin ubax ku soo baxana kii ubax caleynayay baabul ihi ka soo horeeya marka hore maxaa la samayn uma saqada uu ka dhacayo ka mishmishin wa tufaaxin mishmishka af soomaaliya maxaa lagu yihahdaa ya rag baan weydiiyo waxay u yaaheen burcood baa la yihahdaa iyo burburcood burcood iyo burburcood qolana waxay dhaheen burcood baan dhahnaa qolana burburcood baan dhahnaa bay dhaheen annaga beeraha ayaa kama bixi jirin marka mishmishka kaasaa la yihahdaa suuqa wuu wada yaallaa hadda suuqa waa yaallaa yar jaallo weeye midabkiisu miro yaroo xabad miro yaroo kuusan buu gudaha ku leeyahay oo kuusan oo marka laga saaro qolof iyo wasakh inay ku hadhay meesha aada moodi isna waa baruur mararka qaarkood aad is leedahay marka la goosto miyuu yartifmayaa sida cambaha oo kaleeto laakiin sida cambaha dundun uma laha mishmishkaasaa la yihahdaa ka mishmishin wa tufaaxin tufaaxa ubax baa soo baxa
marka dambana kala daata oo midhaha soo baxda markaas falilmushtari buu u sugnaaday in lam tancaqidi thamaraatu midhuhu hadduusan guntamin kuwa ubaxa soo baxana waxaan leenahay midhihii ma guntamay mise weli waa ubaxun weli ubax hadday tahay mushtarigaa iskale wakadaa in incaqadat hadday guntamo midhuhuna waa la mid oo walam yatanaahar uusan daadanin annawru ubixi uusan daadanin fi lasaxi sida raajixa wa bacda tanaahuri markuu midhihii guntamay ubixi ka wada daatee keligii soo hadhana lilbaayici baa iskale qofka iibiyey taabiirkii bay udhigantaa iyadana walow baaca hadduu gado nakhalaatin geeda timir oo dhowr hadduu gado nakhalaati bustaanin geeda timir oo beer ku yaalla uu gado mulicatin ubax soo bixisay wa bacduhaa qaarkeedna mu'abbarun waa la ta'biiriyey oo qallacaadii way gaartay falilbaayici baa iska leh tanna wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo beertii midhaha bixisay hadday isugu jirto qayb la qallacay oo la ta'biiriyey iyo qayb aan weli la taaban hadday isugu jirto see la yeeli beertiina la wada gaday midhihiina ku wada yaallo kala saarkii geedkanna geedkan saadheh geedkanna geedkan ka leexida ay adag tahay walow baaca hadduu gado nakhalaati bustaanin beer timir ah buu iibiyey mulicatin alcigii ama ubixii midhaha bixisay wa bacduhaa qaarkeedna mu'abbarun la bacrimiye ama la qallacay falilbaayici ninkii iibiyey bay iska leedahayoo haddii qayb ta'biir lagu sameeyey taqliiban dhinacaasaa la isu raacin si khilaafkii looga baxo fain afrada hadduu gaar u iibiyo maa lam yu'abbar intaan ta'biirka lagu samaynaye ta kale haddii beecii la kala qaado ina mar laga heshiiyena falilmushtari bay u sugnaatay fi lasaxi sida raajixa inta aan la ta'biirinin walow kaanad hadday tahay fii basaatiina beero kala duwan 3-4 beerood buu gaday oo qaybna ta'biir lagu sameeyey qaybna aan laba taabanin tanna intaasaan kaaga gaday tanna intaasaan kaaga gaday tanna intaasaan kaaga gaday buu yidhi ufrida falasaxu sida raajixa ifraadu kulli bustaanin beer kastaba in lagu geliyeelo weeye bixukmi xukunkiisa beer walbaba caqdi khaasa laga dhigayo qawaaciddii aan soo marnay baa la marin waidaa baqayat amaratu ayib intaasoo dhan waa midhaha see loo kala yeelan masale kalaa ka dhalatay haddii geedii ninkii gatay midhihii uu la yeeshay isagu yeesho dee dhibba kama taagna geedii nin baa gatay oo yeeshay midhihiina ninkii horey u hadhay see loo wada shaqaysan adna geedkaad leedahay adna midhahaan leeyahay soo xidhiin ina dhex mari maayo ma kiraan bixiyaa maxaan samaynaa waa masale hadhow imanaysee iyadana axkaamta dhegayso soo lama dhihi jirin minhaaj lama hor ordo innaga waxaan dhihi jirin masale markaad weydiiso saa marka la marayo halkaa su-aasha hadday timaado oo hadhow say u macaamilayaan maxaa la yidhaha minhaaj lama hor ordo isagaa soo wada eeba soo socotaaba waidaa baqiyat amaratu midhihii hadday u hadho lilbaayici ninkii geedaha iibiyey baa midhihii yeeshay geedkiina iibi fain sharata alqaطca heshiiskii hadduu shardigu ahaayoo ku heshiiyey inuu goosanayo midhihiisa laazimahu waa ku waajib midhaha goosaa laleeyahay muddada uu goosanayana fasax baa loo siin adeer si deg dega ku guraa la dhihi midhahaaga haddii heshiiska uu ahaa geedaan kaa gaday midhahana anaa iska leh waanan kaa goosan waa yahay beec uu ahaa adeer midhahaaga guraa la dhihi intaa uu guranayaa fursad la siin kadib waa la kala dhammaaday la kala teg wailaa falahu haddii aynan heshiisku ahayn inuu goostaay falahu wuxuu xaq u leeyahay tarkuhaa inuu ka tago oo uu daysto ila aljadaadi ilaa goosasho laga gaadho ay ka bislaato ilaa midhaha xilli la goosto uu gaadho wuu daysan karaa geeda walikulli minhumaa mid walbana wuxuu leeyahay asaqyu inuu waraabiyo in intafaca bihi warawgaa hadday ku intifaacayaan ay ka faa'iidayaan ashajaru wathamaru geedda iyo midhuhuba yaa geeddii waraabinaya hadday biyaha warawgaa geeddu ku ficnaanayso midhuhuna ku ficnaanaya labadoodaba way waraabin karaan warawgana waa laga wada doonayaa ayib walaa manca loo diidi maayo lilaakhari midka kalena labadooduba way waraabin karaan mid hadduu yidhaahdo anaa waraabinna
loo diidi maayo. wain darahumaa hadduu labadaba dhibaya biyaha lagu sii daayo hadday geedka iyo midhahaba dhibayaanna lam yajuz ma banaana ilaa biridaahumaa inay iskula raalli noqdaan maahane. waayo wixii in la dhibo midhihii idaacatulmaal lagu sameeyo ama mid hadduu isaguba qaybtiisii inuu dhib gaadhsiiye raalli uga noqdo ka kale inuu dhib gaadhsiiye biduuni ridaahu isagoon raalli ka ahayn lama ogola. wain dara axadahumaa midkood hadduu dhibayo oo waa tanaazacaa ay isqabsadaan kii geedka lahaa biyuhu way dhibi kii midhaha lahaana biyuu u baahan yahay ama kii midhaha lahaa biyaha way dhibi kii geedka lahaana geedkiisa biyuu u baahan yahay waxna ku heshiin waaye qoorta isla galeen watanaazaca ay murmaan fusika alcaqdu caqdigii iyo heshiiskii baa la burin geedkaaga iyo midhahaaga la noqo warna lacagtaada qaada la dhihi murankaa looma baahne ilaa an yusaamixa almutadariru qofkii dhibku gaadhayay inuu cafiyo saamaxo yidhaahdo iska wad anaa ilaahay ku hadhi yidhaahda maahane. wa qiila waxaa la yidhi waa weys daciif oo asxaabta shaaficiyadu qaar leeyihiin liaalibi saqyi ninkaa codsanaya inuu wax waraabiyo xaq wuxuu leeyahy an yasqiya inuu waraabiyo. su-aal baa iman halkan wuu ijmaaliyeyoo fusika alcaqdu caqdigii waa la fasakhayaa buuri yaa fasakhaya ma baayicaa fasakhaya ma mushtarigaa fasakhaya ma xaakimkaa fasakhaya yaa fasakha iska leh shaaficiyadu way isu khilaafeen masaladaas man lahu lfasku qolo waxay yidhaahdeen almutadariru kooda dhibku gaadhayo baa fasakhaya qolo waxay yidhahdeen maya albaa'icu baa fasakhaya qolo waxay yidhahdeen la alxaakimu baa fasakhaya wاlmadhabu fasakha waxaa fasakhaya almutadarir alqowlka muctamadkaa fi lmadhab almutadariruda waay kaasaa fasakhaya walow kaana hamaru hadduu yahay yamtasu mid nuugaya rutuubata shajari geedda qodhacaankeeduu ka nuugayaa midhahani midho geedkaba nuugaya hadduu yahay oo nuxurka kala tegaya lazima baayica waxaa ku waajiba an yaqطaca inuu gooyo midhaha goosto aw yasqiya uu waraabiyo geedkan ama waraabi uu dhacaanka iyo qoyaanka ka nuugaya midhuhu ama midhaha aga gooso ani waraabinna maayo midhahana goosan maayo laga yeeli maayo waayo idraar bilaakhar waay. faslu lixdii waa la gaaray soo maha marka maanta halkaasaan isaga daynaynaa berrina weli beer baynu midhaynu ka ganacsanaynaa weli insha allahu tacaala qayba hore cashirka ka midana beertaan baynu kasii ganacsigeeda iyo midhaha sida loo kala iibsada sii wadi doonaa xasuusiya markaynu dhammayno qaab waxaa jira ganacsi midhaha ah oo intaa la sheegay midna aan ahayn midka suuqeenna ugu badanna ah midkaasaa wax ka dhihi haddaad i xasuusisaan takmilatan lilbaabi kaasoo ah midhihii aad soo qaaday intii gadantana waad gadaa inta kalena waad celisaa soo saa maa hadda heshiisyada hadda ay subarmarkeedyada iyo suuqyaduba ku shaqeeyaan caanaha waa la keenaa waxaan gadmin waa la celiyaa joornaalka waa la keenaa waxaan gadmin waa la celiyaa khudaartuna waa waxa ugu badan een waqti dheer joogi karin waa la soo qaadaa wixii gadmaa lagu xisaabtamaa wixii kalena waa la celiyaa taa beecyadan la sheegaya xaggey ka soo gelaysaa qaybta waxaan ka hadli doonaa oo keliya baycu thamara ah waan ka hadli doonaa subxaanaka allah bixamdik